saddex caruura oo walaalo ah ayaa ku geeriyooday dab qabsaday guri ay deganayeen magaalada boorama. waryaheena xaashim sheekh cumar good ayaa warbixintan nooga soo diray boorama. saddexda ubadaha ee geeriyooda ayaa dad goobjoogayaal ahay sheegeen waa masaa'ib baa halkan ka dhacday walaalo wadarka saawari waxaa ka dhacay halkan saddex caruuro oo walaalaa ayaabaa gurigan ku gubtay xilligii la adeeganaya bay ahayd ee dumarku adeega u bixi jireen baar meelaha 12 meelahaas ay ahayd yaan ku yaas karnaa saacada 10 meelaha in kastoo aan eeginta saacada oo soo meelun ka soo yaacnay gurmadkiide saddexdii qof saddex caruur halkan amiiskooda laga qaaday isbitaalka ay ku sugan yihiin magaalada Boorama marka hadda wax ilaahay laga la beero masaa'ib ilaahay laga la bariyo waduuyo maanta laga hadli maayo dad baa ku dhintay walaalo naf baa go'dayba saddex caruur oo saddex walaalo hablaa isku yaaba sideeda xulcaan aqalka doo gubtay iyada ciyaalkuna ay joogeen waa dhintay waa laga maqnaa ciyaalkii ubadkii aqalkii waxba duuyo ma hadhin madaxa howlgelinta ee ciidanka dabdamiska ee magaalada Boorama Saalax Cilmi Nuur oo howlgelinayay ciidamadii gurmadka ee u yimid bakhtiinta dabka gurigaasi haleelay ayaa sheegay in saddexda caruur ah ee ku geeriyooday dabku ay ahaayeen saddex gabdhood oo yaryar oo walaalo ah sababta caqabada ku noqotay ayuu ku tilmaamay aqalka oo guudka ka qufulnaa wuxuu ahaa laba maqsin oo jiingada waxaana ku geeriyooday saddex ubada oo gabdha oo da'dooduna kala ahayd 6 jir 4 jir iyo 2 jir kaasoo aqalku dusha kaga qufulnaa sababaha inaan gaari weyno oo macnaha dhibta hore u qabsadan dabka u dhacday waxayd aqalka oo qufulnaa waxaan soo saarnay saddexdii ciyaala iyagoo qudhu ka baxday oo aan lafahooga iyo jirkooga laakiin kala daadan waxaan ku wareejinay laamaha amniga iyo dhakhtarka kaasoo ambalaas aan ugu doonnay goobihii dhakhtarada hawlgalkani wuxuu noogu dhacay sidii ugu habsamayd iyadoo ay jireen caqabado badan oo dadka oo boog keenay fara badan oo dariiqadii meelan ka hornimay weynay guriga oo xidhnaa ambalaas laan oo meydkii waxaan hore ugu qaadnay aan weynay intaas baa caqabada inagu ahaa taliye xigeenka ciidanka dabdamiska ee gobolka Awdal Maxamed Cabdilaahi Askar ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in dadweynuhu marka ay la soo xiriirayaan ciidanka dabdamiska aanay haysan lambarkooda oo sax ah taasina ay keentay ayuu yidhi in mar dambe warka ay helaan ciidamada heegankaahi horta markii ugu horreysay waxay garaaceen dadku saddex nin bay garaacayeen anaga waxaa noo soo sheegay askari ciidanka ka mid ah oo hadda shaqada ka baxay markii oo meesha deganaa ayaa nagu soo wargeliyay in halka dab ka jiro oo dad ay qaylayaan isla markiiba maanu sugin intaan la soo garaacay kaayge markii waanu baxnay waanu tagnay goobta waanu gaadhnay dadweyne waxa noo sheegay inay garaacayeen saddex nin inay garaacayeen ba noo sheegay naf baxaysaa runtii sinaba looma oolin karo abase haatee intii karaankayga waan dadaalnay sidoo kale taliye xigeenka ciidanka dabdamiska ee gobolka Awdal ayaa xusay baahiyaha haysta ciidanka taasi oo sida uu sheegay aanay jirin wax laga qabtay waxay tahay biyaha oo aad nooga fog meesha markii aan tagnay baabuurtu inoo buuxeen isla markaan dhaminadana waan soo dhaaminay laakiin booyadlaan jirta awgeed oo baabuurta raacda mar walbana media waan ka sheegnaa dadweynaha waan u sheegnaa martin booyad ma jirto ta kale jirtaa waxay tahay muxuu ahaa marka meeshii aamid ama yaalo ama dhaawac jiro ambalaas ma jiro maanta waxaanu raadinaynay ambalaas ma raadinay maanta intaan ambalaas ka raadinaynay ay 30 daqiiqo dhawaad in ka badan ma raadinaynay waxa jira waqtiga dab meel qabsado waxyaabo loo baahan yahay in dadweynuhu ogaadaan si baaq u gaadho ciidanka dabdamiska iyo marka uu ciidanku yimaado goobtaasi arrimo loo baahan yahay in laga digtoonaado si ciidanku u gutaan shaqadooda dabdamiska sida mar kale taliye Maxamed uu u faahfaahinayo bulshada waxaan mar labaad ku celinayaa mar saddexaad ku celinayaa dadweynaha aanu sheegaya kow in lambarka 990 in ciidanka dabdamiska la xiftiyo gobolka marka labaad in dadweynuhu marka ciidanka dabdamiska meesha yimaadaan goobta loo baneeyo dadweynaha ay faarujiyaan lana shaqeeyo dhanka kale waxa maalintii saddexaad ku xidhan magaalada Boorama laba xubnood oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama kuwaasi oo ciidanka ammaanka ee magaalada Boorama ay xidheen labada xildhibaan oo kala Maxamed Deereysto oo hore u soo maray gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Boorama iyo Mustafa Maxamed Xasan ilaa ay hadda mas'uuliyiinta dawladda ee heer gobol iyo heer degmo ma sheegin sababta loo xidhay labadaasi xildhibaan marar dhowr ah oo aan isku daynay in waxaan ka weydiinay xadhigooda waxaa noo suuragali weyday xidhiidhka mas-uuliyiinta dhanka maamulka gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama
madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa oo ka mida madaxda caalamka ee ka qaybgelaya kulanka guud ee qaramada midoobay ee magaalada new york ka dhici doona dhowaan ayaa shalayto qada sharaf u sameeyey qaar ka mida hay-adaha iyo muslimiinta ku nool dalkan maraykanka isagoo kala hadlay guulaha ay gaadheen iyo caqabadaha horyaala haddaba falastiin axmed iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay xaashi shaafi oo ka mid ahaa dadkii munaasabadaasi lagu casuumay ee ka qayb galay waxay runtii ahayd xafladda ama munaasabaddu waxay ahayd madaxweynaha sanadkiina soo dhaafana waan la kulanay sanadkanna wuxuu ballan qaaday si kooban ilaa adiyo 35 qof oo waxgaradka maraykanka muslimiinta ka mid ah maadaama dee kulligood hal mar qofku uusan hadal u wada jeedin karin ama uusan wax isweydaarkiisan dhici karin marka iyagoo kooban oo aan kala hadlaynay waxyaabaha horumarka waddanka laga gaaray waxyaabaha dib u dhaca laga haysto waxyaabaha caalamkii aan ka nimid aan ku xirnay dadkan dadyooyin kala duwan maasabkooda meelo kale ka yimideenna meelahay ku xirnaayeen waxa ka jira solutionkooda iyo waxa aan isaga kala ahaan waa la wadaagi kartaan iyo isaga degeyska nooca inuu sameeyo isagu nala wadaago waxa ay ka qabteen meelaha kale ee caalamka intaasuu ku saabsanaa marka dadka uu la hadlayay dad sidee ahay ahaayeen maxay waxay ahaayeen dad institutional leaders waxay ahaayeen mas-uuliyiin hogaamiyeyaal u ah ururo waaweyn oo caalami ah qaarkood qaarna ah maxaan ku dhaha culamo sida one example haddaan kusii tusaale oo kale consul waxaa jira la yidhaahdo consulka guud ee muslimiinta maraykanka oy ku midaysan yihiin masaajido hay-ado diiniyaal matala iyo kuwaan diini ahayn aada u badan iyo hoos yimaada waxaa kamid a kuwan la yidhaahdo oo kale mars mataqaanaa ururo badan baa kamid a waxaa kaloo meesha joogay keer aad ogtihiin hay-ad xuquuqda bini-aadamka u dooda oo aada u balaaran maraykanka ay noqotay hay-adda labaad ee xuquuqda bini-aadamka u dooda ayadana waa joogtay iyo hay-ado badan oo lamid ahoo kala duwan iyo waxgaradyo kala duwan mas-uuliyiin ah oo meelo kala duwan wax ka ah ayay ahaayeen dad ilaa adiyo 45 qof qiyaasta ilaa 50 ilaa 50 qofka ayay ahaayeen marka muxuu u sheegaya ma ayaga keliyu dhegeysanaya mise waxaa jirtay xogo iyo warar bixino uu idinla wadaagay runtii isaga wuxuu ku dhegeysanayay dadku waxyaabaha ay bulshadii ay ka yimideen ama ha noqoto kuwa success ah ama ha noqoto kuwa crisis ka jiraan ama dilab ka jiro meelaha dilab ka jiraan iyo meelaha nabadda ahba khaasatan sida nolosheenu maraykanka ay tahay islaamofoobiyahan wax saameyn nagu yeeshay oo taasna waxaa dhahayaa runtii la wadaagday ama dadkii maraykanka haddaan nahay la wadaagnayahay waxyaabaha lasu soo qaaday kamid ahaa oo kale horumar badan ee muslimiinta maraykanka ay gaareen 10 sano lasoo dhaafay oo ay kamid ah xagga ka qayb qaadashada nolol mujtamaceedka waddankan oo aada ugu yaraayeen ama siyaasadiisa inay ka noqdaan aad bay ugu yaraayeen muslimiinta mana aysan ka eegeli jirinba haddana sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadihii lasoo dhaafay 300 oo muslimiin ah kasitay oo u tartanta xafiis hogaaneed oo maraykan xabsidiisa kamid ah 150 ka midna waa guulaysteen oo waa runtii waa limin iyo sharaf iyo banaha runtii lagu faani karo dhinacaas waxay idaacadaha positiveka dhinaca negativekana sidoo kale islaamofobia saameyn badan oo geystay ayadana waxyaalaha laga dhaqaashay kamid ama la wadaagnay kamid ahayd kadibna asna wuxuu nala wadaagay iyo wadamada aan ka nimid waxaan ka ognahay aniga oo kale waxaan fursad u helay dadkii inaan la wadaago ama aan wax iska warsano dad bulshooyinka aan ka imid oo minasoto horumarka ay gaartay iyo sharafta ay leedahay inaan ku faano mar kasta inaan la wadaago iyo inaan uga mahad celino soomaaliya waxay ka wadaan waxa ka matan aan keenahay tusaale ahaan aan tusaaleynay ama aan tusaaleeyey wixii fariin aan ka wada dadyo kala duwan waa soomaalida waraysi aan lasoo yeeshay intaanan iman ama fariimihii xambaarsanna aan la wadaagay waxyaabaha tusaale ahaan aan isleeyahay tar bay u noqon lahay soomaaliya haddii lagu zaa'idin lahaa wuxuu ii sheegay inay wax badan ay ka qabteen soomaaliya haddana ay damacsan yihiin inay wax badan ka qabtaan wuxuu ballan qaaday haddana mar kale inuu dib ugu laabto soomaaliya oo uusan noqon keliya inuu horey u tegi jiray aysan noqoto wax kasta markasta si joogto ah furitaanka kaba soo qaada hadda mashaariic ka socota soomaaliya ayaga ay wadaan oo kale marka la dhamaystiro furitaankooda inuu ka qayb galo wax kasoo furo inuu damacsan yahay in dadaalka soomaalida ay samaysay ay ku ammaanay yihiin iyo horumarka ay gaareen iyo meeshay u socdaan maalin kasta ay farax gelisan waxyaaba nala wadaageen kaas wuxuu ahaa xaashi shaafi oo khadka telefoonka ee magaalada new york ugu warramayay falastiin axmed iimaan
qabyaaladda ayaa la sheegaa in ay tahay dhibaato weyn oo haysata bulshada soomaalida taasi oo xitaa aan ka hadhin marka ay qurbaha tagaan. cabdi nuur oo ah wiil soomaali kanadiyan ah ayaa qoray buug wacyigelin oo ugu magacdaray the somali camel boy oo uu yahay macnaheedu wiilkii geeljiraha ahaa ee soomaaliga ahaa, kaasi oo kaga hadlayo wiil reer miyi ah oo qabyaalad darteed dhibaato loogu geystay qoyskoodii, haddana aan qabyaaladda ka hadhin xataa markii uu qurbaha tegey. wariyaha v o ed ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa cabdi nuur waxa uu kula kulmay magaalada toronto. ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay buuggaasi. xuseen, buugga waa sheeko inan yaroo geer jira ah oo geeloodii la qaaday oo dabeedna soo gelaya magaaladii. marka waa sheekadiisii buuggu, laakiinse waxa weeye siday qabyaaladdu dhibaatooyinka uu inankaasi la kulmay uu kula kulmay qabyaaladda iyo siday u baabisay qabyaaladdu mujtamaca soomaaliyeed. inkastoo ay tahay buug sheekada inankaa, haddana sida runta ah waxaan u qoray ee aan uga jeedaa sidai qabyaaladdu waxyaalaha dhibaatooyinka ay gaadhsiisay dadka soomaaliyeed. waa tahay marka maxaad ku xulutay magaca somali camel boy? xaggee bay iska qabanayaan wiil soomaali oo geel jira iyo qabyaaladda oo buugku ka hadlay? wuxuu ku bilaabmayaa sheekadu laba qabiiloo soomaaliya oo ka dhaxayso dhibaatooyin iyo dagaal. markaasaa inankan uu buugu ku saabsan yahay baa geeloodii la qaaday, aabbihiina waa la dilay. taasaa ku kaliftay inuu yimaado magaalada. waa tahay marka qabyaaladda soomaaliya marka laga hadlayo maxay kula tahay buuggan inuu ka tari karo marka wacyigelinta ay timaado? ujeeddada ka dambeysa ee dadku ay ka faa'idi karaan maxay tahay? waxay tahay xuseenow, mujtamaceena dhibaatada weyn oo haystaa waa qabyaaladda. ilaa societieska kale waxyaalaha ayna dheeryihiin waxaa ka mida matalan markaad u kombeer garayso matalan kanada oo kale, qofkii shaksi waa individual, waa free individual, loyal uma aha oo daacad uma aha qabiilo. marka waa inuu qofkii u fakiraa ase qof ahaan wixii saxa iyo wixii qalada, ilaa aynu heerkaa gaadhno oo uu qofku aanu qabiilo uun u fakirin ee uu ku fakiro wixii saxa iyo wixii qalada. siyaasi ahaan waxaan I don't think inaynu meel gaadhayno. waa tahay marka markuu kanada soo galay geel jiraha, maxay tahay waxyaabaha uu la kulmay oo lala xiriirin karo ee dhanka qabyaaladda? waxaan ku qoray buugga oo ku tusinayaa xitaa markuu soo galay halkan ee uu ka soo cararay waddankiisii ee uu 5,000 kaba badan 10,000 mayl uu ka fogiyey waddankiisii, haddana weli qabyaaladii kama bixin. weli dhibaatadii qabyaaladdu ay ku haysay weli wuu ku fakerayaa oo way ku jirtaa. sidee yani? dee ilaa intaa waddankii baa ka dhacayaan dagaallo oo la socdaa intaa uu ku fakerayaa. aabbihiisii la dilay buu inuu u aaro intaa ku fakerayaa. waxba waddankii unbuu ka yimid mooyaane weli qabiiladii way ku jirtaa. xitaa halkan wuxuu ugu imanayaa dad kaloo soomaaliya oo iyana qabyaaladii weli sidii ugu jirto. waa tahay nuur cabdi, waad mahadsan tahay. buugga sida magacaaba laga dheehanayo somali camel boy, waxaad ku qortay afka ingiriiska. sidaan ognahay dhibaatada marka ay dhacday dadka qabyaaladdu ay saamaysay ilaa iyo hadda qurbaha marka la yimi sida aad sheegtayna weli ay daba socoto, waa dadka soomaaliya dhibaatooyinka la kulmay. inta soomaaliga ee waalidiinta iyo dadka waaweyn luqadda ingiriiska aad u yaqaanana sidaa uma badna. dadka aan ognahay oo halkan ku dhashayna xitaa ma yaqaanaan badankood qabiilka ay ka soo jeedaan. maxay ahayd fikradda ka dambaysa in af english lagu qoro amaba ingiriiska lagu qoro? haddii soomaali lagu qori lahayse dad badan soo isma weydiinayaan in dad badan ay ka faa'iidaysan lahaayeen? xuseenow, buugga markaan qoray aniga waxaabay hawl yaraan lahayd baan umaleeyaa inaan ku qoro af soomaali, laakiinse buugga markaan ugu talagalay sida runta ah ugumaan talagelin soomaalida un. mushkiladda qabyaaladdu waxay haysaa dowlado badan oo afrika ah oo dee waad ka war haysaa. dadka madowee afrikaanka oo dhan qabyaaladdu way haysaa. inagu clans baynu nidhaahnaa, ayana tribes bay yidhaahdaan, inkastoo ay yar kala duwan yihiin. marka waxaan u qoray si generala oo qof waliba uu akhriyi karo buugga.
laakiin soomaalidu dabcan magaca soomaaliyu sitaayo soomaaliyu gaar oo disha ka Soomaaliyeed laakiinse subject aan ka qoray iyo sida aan u qoray waxaan ugu talagalay in qof waliba akhri karo